wuxuu kaalmaha ugu horeeya kaga jiraa tobanka xanuun ee ugu dilaasan gebi ahaanba adduunka. Waxaa la yidhaahdaa waa xanuun kula fil noqonaya maalinta uu kugu dhaco ilaa inta noloshaada ka hadhay. Dadka uu hayo xanuunka aynu ka sheekeynayna ayaa waxaa lagu qiyaasaa 422 milyan guud ahaan adduunka. Xanuunka aynu ka hadlaynaa waa xanuunka loo yaqaan macaanka ama sonkorowga. Haddaba waxaanu ka hadli doonaa qaybaha uu leeyahay xanuunka macaanku, calaamadaha macaanka, sideen ula tacaali karnaa iyo weliba xogo kale oo ku saabsan xanuunka macaanka. Xanuunka sonkorta ayaa qofka ku dhaca marka insulin uusan jirkiisu soo saarin amaba aysan sidii la rabay u shaqaynin insulintu. Insulintu waa maadada nidaamisa sonkorta jirka. Badanaa macaanka waxaa loo qaybiyaa 2 nooc. Inta badan nooca koowaad waxa uu ku dhacaa carruurta, halka nooca labaad uu ku dhaco dadka waaweyn ama da'doodu ay ka weyn tahay 30 sano. Astaamaha ugu caansan ee macaanka lagaga sooci karo gebi ahaanba xanuunada kale waxaa ka mid ah oon saa'id ah, kaadi badan gaar ahaan habeenkii, daal saa'id ah, in uu miisaanka qofku hoos u dhaco, caabuq dhanka afka ah, aragga oo daciifa iyo weliba ugu dambeyn dhaawacyada qofka soo gaadha oo aan hore u bogsan. Ma jiraan waxyaabo lagula tacaali karo xanuunkan macaanka. Jimicsigu wuxuu hoos u dhigaa heerka sonkorta jirka. Waaxda caafimaadka ee laga leeyahay dalka UK ee lagu magacaabo NHS ayaa ku talinaysa 2 saacadood iyo badh oo jimicsi ah qofka inay ku filan tahay toddobaadkii. Waa muhiim inaad ka fogaato cunada sonkorta leh ama cabitaanada, lana socoto heerka sonkorta jirkaaga. Macaanku waa waxa ugu badan ee indho la'aanta, kaliya fadhiisiga, wadna xanuunka, faalugga intaba sababa. Marka waa muhiim inaad xaaladaada ama heerkaaga caafimaad la socoto waqti walba. Ugu dambeyn, ma isleedahay daawade bulshadeena Soomaalida saameyn xooggan ayuu ku leeyahay xanuunka macaanku?